قربة هدي غيرهاي كويسو دلكان قيمة دو هيسو قلوب تادو إلى هيسو قربة هدي غيرهاي كويسو قربة هدي غيرهاي كويسو دلكان قيمة دو هيسو قلوبتا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. دعوة كسو دوادا برنامج كيني قربة جوج وحوجال صدق كاغا أو هذا نوع كسو قلا تي في قبل شو ساعد مركز تهاي طبعا كيربع ورك الدبدي هبين ماذا عايزين تسوي جلسوا برنامج كان أحكي سديرات أيام ما أنت مرتوى حناء سراد آدم أحمد ياسين أو هدي بين ما أنت وقت جيري شقدي قال جاها كسوق عبي أنا أقوم هذنا قينا نقول إن هذه أبدا ما هتسنتهاي هذا سراد وحيرني يشة وسراد وحويه تمركا حلول فريستا حلول إيبيا يجو ما ركتب ميسا يجو عن سو واردين ما ركتي دلالين لكن ميساس كلا فريستا إيبيا دلك كسبحة مركا وحنو صو دولني إني بالقرب تشوجو أي أوغادان sida raashinka wadanka ka soo baxa ama wadamadan shaarka laga keeno sida hadii biidmay dadku imika u cuno sida aynu badankeena ognahayna Yurub iyo Mareykan iyo hadii biidmayo dadka caafimaadkoodii waxay dib ugu noqdeen inuu qof walaala uu qutuldiroodiisa cuno wax nadiif ah oo caafimaadkiisa waxba yeeraynin oo hadii biidmayo uu maaragtay ay la soo baxaan oo cunaan marka siraad inteen leeg baad haruurkan iyo digirtan iyo mirahan dalka ka soo baxa aad ka shaqeynaysay ilaa dagaalka sukeeya waxa weeye marka intii ka dambeysay mise bartamihiisii intii ka dambeysay okay وهرانتي سقاشنيدي مركا waxaad bal nooga warantaa raashinka aad iibisaan ma aragtay aad dibadda wadaan digtaan gadbadaha ku jira ma kuwo dalka ka baxaba oo dalkeena ka baxaba oo ka soo go'a ma kuwo wadanka Itoobiya laga keenaba ma kuwo bari laga keenaba oo Puntland laga keenaba xagee markaa raashinka aad iibisaan uu ka yimaada asalkiisu wuxuu ka yimaada mid inagu inoo baxa aye midna wadamadan jaarkeena uu ka yimaada aye midna wadamada ka sheeyo ka yimaada okay marka kan wadankeena ka soo baxana uu nimina dadkuna aad u isticmaalaa kuwan kalena waa iibisaan ama jaarka laga keeno ama dibadda laga keeno nacam wani bina هين بريس يباستو وياهي بالنوعية هذه بيسان مياد وحنوغا شيء كرتا التجرتا وقروغا وهركوغا وتشاتشبكا تشاتشبكا نمحي ويقدم بيه تشاتشبكا نمي السرين تشاتشباوية من نواس مستر وكلا وحاه تشاتشب لها وسفيل كوكلا marka waa 4 ama 5 miya waa laba ay tambiya waxa dhan marka la isku wada daro waa imisa raashinka iibisaan yani intee nooc buu kala baxaa wuxuu kala baxaya sareenkii heedii qamadiga dabiga garowgii galeydii cadaydii casay harakoogii misirkii waxa soo dhan buu kala baxaya okay
waa yahay markaa dadku iminka dalkeenu waddankeena waxyaalahan hore loogu aqoonin waxaa ka mid a xanuuno badan oo dadkii ku soo baxay macaanku ka mid yahay oo dhiigkarku ka mid yahay oo subaga dhiigku ka mid yahay oo runtii maaragtay dadkii miisaan badan fuulayo uu yahay ama ay maaragtay markaa had iyo jeer iminka waxay dadku xiiseeyaan in raashinkeenii hore aynu ku soo arabnay in ay maaragtay dib ugu noqdaan oo ay ka xoroobaan baasta iyo bariis taagan mar walba. iminka cidisma isticmaasho bariis iyo baasto gebigaba waxaan iminka waddankeena kasoo baa aada loo isticmaalaa boqolkiiba inteebaa bilmetelbaba alen baasto iyo bariis meeshaan istaagaba waa lagu cunayaaye intee bilmetelbaba aad is leedahay boqolkiiba intaasaa la isticmaalaa 3 meelood marka loo qaybo 2 meelood mooyaane meelun baa iminka bariis iyo baasto cunto okay isaguna waxaa jira wax dee aniga gaar ahaan igu cusub oo raashino badan oo maaragtay dalagaa ka mida oo laysku ridqaayo oo haddii biidmaayo mar la wada karinayo kuwaa iyaga baad wax nooga sheegi goortay soo baxeen iyo waxay kala yihiin. waxaan marka laisku daro muushaali wax la yidhaha bay noqdaa haye muushaali markan waxa meesha yaaloo dhan dhammaan laisku wada daro haye wax muushaali la yidhaha baa laga dhigaa haye deetana de wax macaan oo la cuno weeyaan okay marka dadka macaanka qaba oo kale maxay had iyo jeer inaga iibsadaan waxaana looga ridqaa waxaan laisku daro heed ka mid ayaa ugu muhiimsan ugu muhiimsan okay waatada iminka waad og tahay sixir barar baa dadkii dhagaha ka cunay marka meeluhu had iyo jeer ku horeeya sixir bararkuna waxa weeye waa raashinka marka dee ininkuna waxaad ismaysaysaan dee gabadii sokorta ahayd ama gabadii dee raashinka ahayd halkii doolarna iminka wuxuu marayaa 10,000 oo shilin somaliland ah marka galaankii haruurka ahaan jiray noociisa fiican maxaa ku kordhay ama gabadii maxaa ku kordhay markii hore 4,000 baa naga siin jira galaanka iminkana 2,000 baa ku kordhay oo waa 6,000 imika okay waxaa kale lacag siyaadihii aada ugu kordhay maxaa ka mid ah digirta ay imise iyaduna ahayd 14 bay ahayd galaanku haye iminkana waa 6 iminkana waxa weeyaan 6 oo way laba laabatayba way laba laabatay iyadu inooma baxdo xamar baa laga keenaa marka sidaas oo kale adduun weynaha maaragtay dee dadku wixii qaaligaroobay ee ayna awoodi lahayn way ka hadhaan qofkii iibsan karaya anuu iibsanaya qofkii kalena wuu ka hadhayba wuu ka hadhay horaaba looga hadhayba bal waxaad nooga warantaa berigii yar ama yareerane maaragtay waxaa jiri jirtay ingiriiska inuu sameeyey xerahaluub dee nidaamsan oo qof walaaba meel fadhiisanayo oo miiskii iyo wixii lagu fadhiisanayey le ininkuna intiina sokeymka waxaa fadhiisataan dee meeshan dhexe ee maaragtay haddii biin maayo labada sakadood udhexaysa markaa wax qorsho ah miyay inay haysaa dawladda hoose ay bilmetelbaba ay doonayso inay xero gaara oo weyn inii samayso oo halkaa maadaama dalagii waddankana lagu iibinayo in dadkii si nafisa ay u iibsadaan oo iminka marka aada luqluuqa yar ka baxaysa ee wax lainaga iibsanayo eriidi badan baa jira moogto kaariyoonihii baa cararaya oo waxaa cararaya raggii baa cararaya xamaalkiisa oo wax sida dumarkiibaa iyaguna cararaya marka taas ma kala hadasheen dawladda hoose in aada baahi sidaas ay jirto wayna ogyihiin laakiin waan rajeynayna inay noo sameeyaan wax ballanqaada ma ka haysataan maya waa yahay bal waxaad ka warantaa haddii biin maayo iyadana waa tanoo dee magaalooyinkeenii maaragtay dee lixdameeyadii horaanteedii iyo aakhirkii kontomeeyadii si habqadaa loo soo galay oo
magaalooyinka in laynoo diyaar garaynin xaggii tacliinta xaggii wadooyinka xaggii musqulaha xaggii guryaha ayuunbaa dee laga soo cararay miyigii marka intaasoo dumar ah haddaad 500 oo dumara tihiin ma ka fekerteen inaad idinku wax beerataan oo maaragtay aada iskaashato oo kala samaysaan oo dabadeed raashinka inii soo go-ay aada idinku iibisaan oo halkaana faa'iido labaad oo meeshii dilaalkii ka baxaayo ama tii dibadda laga keenayo taa ma ka fekerteen oo ma ka wada tashateen insha allah waan rajaynaynaa inaan iibsano beerahan wax ku beerno wax rajaynaynaa wax urura oo iskaashato ah oo idin madaxa oo idin hogaamisa ma leedihiin maanagu hawaan leena marka ma shirtaan oo arrimaha sidaas oo kale ma ka wada hadashaan oo fikradda ma ka dhiibataan oo ma isku timaadaan waa yahay waxaan garanayaa beri iminka 12 sanadood laga joogo in dumar basasha Ethiopia ka keeni jiray oo baabuur waaweyn kusoo rakibi jiray ay sheegeen in ay dhulka ay kreystaan oo maaragtay ay siiriskii iibsadaan basasha oo ay generatorkii iyagu leeyihiin lagu waraabinayey iyo maaragtay markaa ragna uga shaqaynayo iyo dumarba uga shaqaynayo oo beertii 3 bilood ama 4 bilood ay kreysanayaan oo waxoodii oo loo hagaajiyo sideediiya baabuur waaweyn in loogu soo waaraada loogu soo horayo halka la keenayo oo iyaguna bakhaaruna fadhiyaan una la wareegayaan marka fikradaha sidaas oo kale inaad bimatalbada haddaydan idinku baxi karayn ama dadkii aad dhasheen maaragtay ama aad la dhalateenba maaragtay ay miyi iyo shaqo beer ayna waxba ku haynin taa iyada maynii banaantay ama hore mooga fakerteen insha allah imaan ku rajaynayna inaad arrinkaa fulisaan inaan furno aan samayno okay ilaahay haynii fududeeyo had iyo jeer marka laga tago xerahadhuu dhan ingiriiskii sameeyey tiinu way iska dul qaawan tahay jawaanadii iyo gadbadihii ayaa maaragtay dee dalladahan hoostooda yaalla markaa raashinkii dee hadduu waran yahay miyna dabeeshii iyo siigadii mayna ku dhacaynin oo markaa haddii biin maayo caafimaadkii dadka miyna markaa taasi waxu dhimaynin waxa weeyaan raashinkan bacaa ku jira dee raashin meesha ku raaga maaha waxa weeyaan waad ku shubaysaa waad ka shubaysaa markaaba waa raashin cusub waad ku shubaysaa waad ka shubaysaa haddana marka waa wax maalin walba la iibsanayo wax la iibsanayo la bedelayo galkii laga bedelayo laga shaqaynayo weeyaan waxa weeyaan cunto iyad u dhacaysa maaha expirena maaha okay marka haddii biin maayo xagga nadaafadda aad baad uga shaqaysaan waan ka shaqaynaa insha allah okay iyaga waxaan garanaynaa berigii aan yaryareen ama maaragtay inta dambe magaalada lasoo galay in riyo fara badan ay inii soo foof tegi jireen oo maaragtay idinkuna aada ul iyo budun sidaa u haysan jirteen oo aada is-eryanaysaan oo rida mar kaliya intay soo boodo hal mar intay ay labada daan buuxsanto ay iska tegayso haddana mar labaad markaad sidaa indhaha u yar liclicidaan lootaan ama maaragtay wax iibinaysaan haddana dhinacan kale kaaga imanayso haddana kaa boogaysa hadda dagaalkaasi maynagu furan yahay may imika uu naga yeeriye maxaa markaa sababay rii way yaraadeen dee aye wax kaala jiiray wax la xado way yaraadeen imika sidii hore maaha sidii hore maaha malaa inkaarihiinii baa ku dhacay inkaaraayad baa ku dhacay waa yahay dawladda hoose dee waxay leedahay department dhan oo maaragtay city planning la dhahdo oo qorshaha magaalada dee sallaxiya waktiyada maaragtay dee fog ama kuwa dhow markaa dee mays abaabushaano ma u tagtaan xafiiska oo haddii biin maayo matalan dee qorshaha magaalada lagu dara oo haddii biin maayo dee annaga hana iloobina oo mar ololaysaan
إن شاء الله وحرو لما ننتقل لكن إن شاء الله وحير دونا dee soomaalida waxaa tidaahaa ilmaha yar hadduuna oohin ma garanayso hooyadii maaragta markuu ooyo ayay caanahaafka ugu qabanaysa ama naaska afka ugu qabanaysa marka haddii haddaad iska aamustaan dee u malayn maayo in insha allah mayoon waxiri doonaa maxaa hiigsanaysaan maxaad adigu ahaan bilmetelbaba imise sanadood baad ku soo jirtay ilaa iminka 94 waa muddo maaragtay 20 sano meelahaas ah maxaad iminka aad hiigsanaysaayo aad bilmetelba rabtaa inaad halkanaad joogto aad sano u kacdo oo aad ilaahay caafimaad iyo nabad ha ku siiye aad ka sii dallacdo maxaad ka fakertaa waxaan ka fakeraa inaan kambaliyad ku dambeeyo inaan kambali ku dambeeyo kambali raashinka beera soo saara warshada sameeya okay marka taasina dee in hami iyo qamina la yimaado waa loo baahan yahay oo qof aan iminka qorshe lahaynin nolosha dee maba socon karaayo sina uu socon kari maayo da-yarta ku daawanaysaana dee way kaa faa'iidaysanayaan haddii aan la idhaahdo qorshahaagaa fiican ilaahay ha kugu nabadgeliyo maxaa haddii biin maayo shaqo wal oo la qabanayaba carqalado leeyihi maxaa markaa bilmetelbaba carqaladaha inagu hor yimaada maalinlaha ama kuwa muddo markaad joogtaan aada aragtaan maxaa ka mid ah wallahi wax caqabado aniga iga hor yimid maan arag waaya anaaba mid garanayaba aniga anu ku imaadee kaa iibsada bishii dee 2 gabdhood oo dee haruurka shimbiraha aan siiyo midna xafiiska aan dhigo midna guriga aan dhigo oo 24 sanadood aan kaa qaadayo dee halkan waxa dee kaa xiga dee makiinadii haruurka ridqaysay oo dee noocii 70 sano horteed ama 80 sanadood horteed laga baxay dee qiiqa badan sii deynayso qul baahaysay lixda marka sidaa loo shido 6 ama 8 habeenimo la baktiinayo naqaskan badan sii deynaysa marka taasi mayna caafimaadkiinii iyo caafimaadkii raashinka iyo maskaxdiinii iyo dareenkiinii mayna carqalad inagu ahayn ma way nagu tahay laakiin dee waxa weeyaan daruur bay noqotay aan laga maarmay waayo raashinkan galaanka lama darayo haddeen makiinadan jirin cid waxba kaama iibsanayso oo dee ridqiba ku xidhan ridqiba ku xidhan anaga waan heli karanaa inaan maalintii shaqaysano sugna habeenkii shaqeeya laakiin ma suurtoobayso waayo laakiinse qolooyinkan maadaama atin urur baanu leenahay qolooyinkiinan dee madaxda ah dee intaad la kaashataan dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka oo kale dee inaad tidaahaan haddii biin maayo war waxaan dee naqas ka soo baxaya ma fiicnee dee waxanina wax laga tegay weeyaano 70 ama 80 sano horteed lagu isticmaali jiree war dee wax dhaama dadkani dee ha ku soo bedeshaane dee naga qabta oo dee naga haddii biin maayo dee naga sameeya oo annagii iyo hawadii iyo naqaskii iyo xoolihii iyo dadkii iyo raashinkiiba waxbay yeelaysaa annagana maskaxda yadii dee qulqul markaan inta saacadaha yaraa seexanayna markaa 18 saacadood fadhidaan 4 saacadood ee dambe aad fadhidaan qulqul maskaxdiina dee inkoo isna wax faa'iidaysta waxba laga yaabaa inaad ku xanuun ka qaadaan marka taa ma u ololeyseen ama haddii biin maayo ma ku tala jirtaan waxa weeyaan makiinadii marka hore waa la bedeliyo makiinada cusub weeyaan qulqul badanna male qiiq badanna male fiican haddaamana isku makiinadayna sheegayni siraad ama markaan telefoonka aan kula hadlaayoba anaaba halkaa kaa maqleen ku leeyahay ii dhig haruurkii waa soo doonanayaaye qurqudheeda soo dhiga maqlaa dee mashiin waloo la istaadhaaba u qurqudhleeya walaa kaana gaarinaha noqdeen okay waxaa kale oo aan ku arkaa ama iska jirtaba in dumarkiinu ay haddii biin maayo inta yaree dhil aada haysaan uu qofku doonayo maalin walba inuu ku soo durko oo waddadii yaa markaad adigu ku durugto ee iyadu ay ku soo durugto kani xaggan tanna xaggan kaga soo durugto in waddadii dirqi lagu maro oo haddii biin maayo kaariyoonihii iyo kii xamaalka ahaa iyo haddii biin maayo wax is eryanaya in
la islaba jiino qofkii uu qofku yidhaahdo maxaaban kasoo doonayaaba meeshan oo aad aragtay ma aragtay inay dee meesha ciriidi tahay marka dhaqankii idinkoo keliya maahine dee waa kuwii kaariyoonayaasha wax ku iibinayey waa kuwii dharka iibinayey sidaa un baa loogu sii siqayaa har iyo habeen marka ma layni kala nidaamiyaayo haddii biid maayo ma layni kala hagaajiyaayo ma layni kala xadeeyaayo wadada jaalis ma la siiya waxaa dadku kala xadaysay waktiyadan dee dadku xiibsanayaan kolle de kaariyoon uu maraya laakiin dib oon u kala baxno aad bay wadada waa socotay way fiicantahay iminka dad barnaamijkan Soomaaliya arag iminka aynu hayno aynu ka wada hadlayno waxa iska kaashaday aniga oo Rashid Sulub Caalin ah oo barnaamijkii geediga wada guuleystay ah iyo shirkadda Somtel ee isgaarsiinta casriga ah iyo TV-ga bulsho sidaas baanu dadka aanu la socodsiinaynaa wuxuuna ku wajahan yahay dadka qurba jooga ah ee dibadda jooga ee soo hayaabaya inay waxyaalo badan ogaadaan oo dadkii shuqul wixii ku lahaa ay afkooda ka maqlaan marka qurba joogu mayna yimaadaan dadka dibadaha ka yimaada ee deganaa mayna weydiiyaan oo raashinka haddii biilmaayo mayniga iibsadaan oo haddii macmiil mayni yihiin oo ma jecel yihiin raashinkan wadda ka soo baxa waxaa u jecel yihiin wayna noo yimaadaan wayna naga iibsadaan okay way wanaagsan sidoo kale waxaa jira hay-ado caalami ah oo raashin bixiya oo maaragtay abaaraha iyo markay aafooyinku dhacaan bixiya raashinkii toos wixii gabad ku jira ama saliid ku jira toos halkii nin baa la keenaya waxaad arkaysaa gabadihii ay ku jireen oo bilmetilbada habkii mucaawanada loo bixiyey ciddii bixisay iyo ciddii la siiyey iyo dowladdii ka timid iyo inaan la iibin karaynin isagoo sidiisii la inii keeno marka taasi biyeyna yacni damiirkiinu war marka qaarkood mina odhanaynin qofkan loogu talagalay raashinka ee miskiinka ah inuu iibiyo oo ka sii macaasho ama mid kale oo ka sarreeyey oo kii qaybinayay inuu dad usoo dhiibto dareenkiinu sidee ka qabtaan arrintaa kolley dee waxa uu iibiyo waa baahi waxa loo iibsanayaana waa baahi dahay arba lacagtanba uu doonaya aanu si raashinka barrabin ha laakiinse heshiiska waxa ku qoran anuu markaan eego kuwan US Airka ee isa salaamaya inaan la iibin karaynin inaan laga bedeli karaynin gabadda inaan haddii biid maayo nooc kale loo bedeli karaynin inaan meel kale la geenaynin marka taa culimada ma weydiiseen in haddii biid maayo si wixii xalaal inoogu noqdaan in raashinkan dad dhibaataysan oo aafiysan loo wado ka iibinaya iyo ka markabkaba ka soo dejinayo toos inoogu keenayo inagu dembi ma lahidin laakiinse dadka noocaasi inaan dambi iniga soo duulaynin ma weydiiseen culimada wallaahi culimo maanaa weydiinaya waxaan qabaa qof wuxuu u baahan yahay ee la siiyey inuu lacagna ku bedelan karo taasaad rumaysan tahay haddii laakiinse gabadda ku qorantii lama bedeli karaayo lacag looma bedeli karaayo gacan kale looma gelin karaayo gacantaa dadka loogu talagalay mooyaane maxaa markaa haddii biilmaayo aad kaga baxaysaan taa dee eeg waa la horta iyadu hay-addii way ka soo baxday iyaga gacan kaley timid oo dadkii u dhaxaysa dadkii la siinayey dadkii ka wakiilka ahaaba labadoodiba udhaxaysa hadday udhaxayso markaa kii markuu dadkii siiyey dee iyaguna way sii iibinayeen oo lacagtan u baahan yahy kii laftigiisa qaybinaya waa iibinayay oo intuu soo hela iibsanayay arrinkaasi makulihii yacnihii inagu dee dad waxaa ku sifoobay oo dee ku shaqaysto bilaa damiira inaad tiin anigu inima eedeynayo laakiinse qaabkaasi miyuu sharciyan kula saxsan yahay mise uu kula qaldan yahay may waxaan ku uri qaladna maaha saxna lama odhan karo waxaa la yidhi wanaaqbiil ma waayo waa yahay
inaga barnaamijka gargaradiisii joognaa had iyo jeer markaan arko suuqa haruurka dumar baa had iyo jeer dumar waaweyn u badan ayaa fadhiya wax rag oo iyaguna runtii shaqadaa ka shaqeeya ma jiraan haa way jiraan way keenaan waa laga iibsadaa okay waan ka iibsanaa marka waa kuwii keenayay ee beeray mid baa keenaya mid baa dilaalaya oo soo qaaday mid baad ka siibsanaysaa mid baa raraya mid baa raraya mid baa kaariyoonihii wada mid baa kaariyoonihii wada laakiinse iyagu ma fadhiistaan meeshu waa magaalo waa la kala shaqaysanaya laakiinse iyagu miis ma fadhiistaan ma fadhiistaan midda kale waxaa timaadaa 6 ilaa 7 qaar baa fadhiya oo haddii meeshaad wax ku cuntaan marka kuwiina dee raggale ee dee la qabay carruurta leh raggii ma yidhaahdaan haddii biin maayo 2 saacado markay dee ay firaaqan leeyiin 2-3 saacadood baanu kaa fadhiyaynaaye allen dee galaankana waxa lagu iibin karayaa dee waa laisla ogyahay dooradoo gurigii tago ama shaqo ka soo qaba ama kala soo habayso ama soo meedho ama carruurtaada inaaska soo si ama dee soo yar seexo miyaad aragtay inna intaad ku jirtay rag sidaasa maya ya maya okay maxaad u malaynaysaa sababta dee waxa weeyaan shaqo rag iyo shaqo dumar bay kala tahay haye qofka dumar ee carruurli dad bay kaga timi haye oo carruurta u haynaya hadday istiraado maanta dee meel qabana qof dumaray kaga tegeysa haye dee waa ka shaqo dumar iyo shaqo rag bay kala tahay okay laakiinse imika heerkan imika aynu marayno adduunkiina qol kaliyuu noqday ya yacni naxariista iyo maaragtay yacni culayska laga qaadayo waxba la maraya imika gabadha markay umulayso ilmaha laga soo saarayo inuu ninkeedu yidhaahdo waan joogaya waan daawanaya oo xanuunkan ayaan la dareemayaa oo aan maaragtay la damqanaya oo halkaa naxariis ilaahay uga timaado ilmihii siduu ku soo baxay gabadhii dhibaatadii markaa malaa maskaxda iyo heerka aan ka hadlayaa malaa xaggan soomay gaadhin marka haddii biin maayo raashinka loogu jecel yahay iminka aada iibiso adigu aada u socdaa waa keen waa raashinkan aan imika hayno aye yacnihii ma digilbaa ma haruurbaa ma haddii biid maayo ma faasuuliyaa ma harakooda keebaa ugu socod fiican oo dadku aada u cunaan ba kala dhacaanba wax meesha yaala haye la wada isticmaalaya mud aan la isticmaalin ma meesha taa waayahay taa ma laga yaabaa haddii biid maayo barashada raashinka iminka waxaa soo baxay meherado badan oo waddada berberkeeda ku yaala oo dusuud waaweyn ba subaxdii lasii saaraayo raashinkii maaragtay dalka oo haddii biin maayo dumarkiina casarka imanayaan iyo raggiiba oo dhuxushii qaaligarowday aan raashinkii inta badan saarnaan jirayn dee haruurkii haddaad doonayso haddaad faasuuliyii doonayso haddaad wax kala doonayso un halkaa isagoo caanihii iyo subag iyo saliiddii leh lagugu shubaayo un taana shaqadii miday sii fududaysay soo maaha ha waa sii fududaysay okay casri cusub baa la gaadhay waayahay waxaan aada iyo aada mar kale siraad aadan kuugu mahadnaqayaa waktigaaga qaaligeedna siisay iyo haddii biin mahay fursadda aada ugu maaragtay ugu deeqday qofka qurba jooga ah ee waddankeenna wax badan soo taray in bal waxa ugu yaraynu qaban karnaa ay tahay in wacyi haddaynu nabadii u sameynay haddaynu haddii biinmaynu tacliintii u sameynay in isagana haddii biin maayo intan yar loogu diro bal la siiyo xaqaa'iqa waddanka ka jira u baahan yahay waa ninka aerobortka ka soo degaa haddii caloosha laga qalay oo bilmetel badaa una cuni karaynin ishaahda balba waxin waddanka jira dee ininkan buu nagu soo horeynaya laakiinse haddii caawa dhaafahoo dhan baa lagaa dhegaysanayaa waxa laga yaaba inay dhahdaan warsidaad aadamnimada markay yimaadaan oy markaa haddii biin wax ka ibsadaan marka aada iyo aad baad umahadsantahy walaashay aada iyo aad baadaanu kuu rajaynaynaa caafimaad iyo nabadna waanu kuugu duceynaynaa meheradaaduna inuu ilaahay si khayr qabta uu sara kugu sii qaadaanu kuugu duceynaynaa insha allah adna rashiid sulub waad mahadsanta adaa mudan walaashay qurba joog
haddii qiray ku hayso dalkana qiimaadu hayso qulubtaadu ay la hayso qurbajoog haddii qiray ku hayso qurbajoog haddii qiray ku hayso dalkana qiimaadu hayso